aagan idin kala tegaya maasha allah waa hagaag kursigaygii markaan tago ayaad bilaabaysaa soo maaha waaye wala soo socon kartaa may halkaaga adoo jooga meeshaada le stage kun la marmar kor u qaad intaa la soo socaya ما شاء الله الله إلهي وكوا هبوين كي لدوني إيهم مهم سنة إلا دوني برامج كان هبوين كي لو سمين قديشوس got talent. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود كسو دواو أحمد تلياني وفشيال هدي أي تايمركي كوكوريسي فضلا سبسكرايب إنو صار قبل الكن ركمو سيادو نغطو داوده وقوري لايك كومنت صحابت هذا نوسي شير قريب كنا سو دوادا موقال عصو وهجاك أصحابي أنت عن موقالك أوجدوا قلنا لما أنت موقالك داوني سو حين كعسنا يا إن أد سبسكرايب كأي نو سارتان سي أي أنا جنا دير قلنا أي نو نقطة موقالك وان كقرح بدنا عن وصوب بندقنا سيدات أكتين بريهم بمجالة مقدشو وحا لقى بلابي برنامج كلجو مجعو مقدشو جوت سالتي runtii barnaamijkaas waa barnaamij runtii aada u wanaagsan loona baahnaa in mar horeba soomaaliya laga bilaabo barnaamijkaas waa barnaamij runtii ay dadka uu ilaahay heybad gaara u siiyey ama mucjisooyin ay leeyihiin inay runtii mucjisadooda ay soo bandhigaan adduunka markaad aragtid waxaa jiro barnaamijyo kuwaas oo kala runtii kasii horumarsan oo adduunka lagu qabto taasoo lagu soo bandhigayo in dadka hal abuurayaasha ee runtii ilaahay heybadda u siiyey mucjisada uu siiyey inay soo bandhigaan taasa waxaad arkaysaa in wadamada adduunka inta badan barnaamijyadaasoo kale waa ay sameeyaan iyagoo soo bandhigaya qofkooda ilaahay heybadda u siiyey taasaa marka waxa ay keenaysaa in qofkiiba durbo uu noqdo qof caana qof caana inuu noqdo taasoo keenaysa qofka inuu ku dhiirado in waxyaabo taa ka duwan inuu soo bandhigo laakiin soomaaliya oo kale markaa tusaale usoo qaadano soomaaliya maysan jirin barnaamijyo noocaas oo kala oo runtii lagu qabta gobolada soomaaliya runtii maysan jirin waxaad arkaysaa dad runtii ilaahay heybad u siiyey mucjiso uu siiyey laakiin ay waayeen qof soo bandhiga waayo qofka hadduu uu leeyahay mucjiso wuxuu u baahan yahay qof soo bandhiga oo saxaafadda hadday ka mid tahay ama masraxa isteejyada lagu soo bandhigo taas waxay keenaysaa in qofka markii halkaas lagu soo bandhigo durbo inuu noqdo qofkii qof caana ama inuu dhiirigelin fara badan uu ka helo taasoo keenaysa in qofka uu soo bandhigo taa arrin kasii weyn oo runtii waxyaabo intaasi kasii duwan inuu uu sameeyo laakiin soomaaliya maysan jirin dad badan oo waxaan arkaynay ilaahay heybad u siiyey laakiin markay waayeen qof soo bandhiga ama qof runtii dadka bulshada bara marka ay waayeen kadib way iska dayeen waayo waxay isleeyihiin mar haddii wixii ilaahay uu kugu manaystay uu heybad ahaan ilaahay uu kuu siiyey haddii aad weydo ama aad garanaynin meel aad kusoo bandhigto way adag tahay xitaa waxaad arkaysaa mararka qaarkii haddaana soomaali nahay waxyaabo qaar oo runtii aan caadaysanay for example oo kale qof ayaad waxaad arkaysaa wuxuu soo bandhigayaa waxyaabo runtii mucjiso gaar ah oo isan dadka kale aysan soo bandhigi karin meeshii laga rabay inay qofkaas ay dhiirigeliyaan ma dhiirigelinayaan waa ay kasii tagayaan waxay ka dhigayaan wax iska caadi normaal ah laakiin halka dunida kale wadamada kale ee caalamka markay arkaan qofkooda ayaga ka mid ah wax yar oo talent hadduu leeyahay waxay ka dhiganayaan wax weyn ayay ka dhigayaan wayna buunbuuninayaan kadib saxaafadda ayay soo bandhigayaan masraxyada ama isteejyada ayay kusoo bandhigayaan qofkii waxa uu noqonayaa already waa in yar oo runtii ilaahay talent u siiyey ayuu qofkii wuxuu noqonayaa qof runtii wadanka uu joogo caan ka ah magarad halka anaga soomaalida runtii aad arkayso qof runtii waxyaabo aan caadihin soo bandhigaya marka dhibaatadaas inta badan soomaalidu way haysataa
laakiin barnaamijka runtii waan soo dhaweyneynaa haddaan nahay dhalinyarada soomaaliyeed. runtii waxaan codsan lahayn in barnaamij kuwa ka duwan oo runtii kasii horumarsan in lasoo bandhigo. haddaan usoo laabano muuqaalka, sidaad muuqaalkan sidaad ogtihiinba baryahanba magaalada muqdisho waxaa ka socday tartanka lagu magacaabo Muqdisho Got Talent. videogan hadda lasoo dhigay kulley already waxaan u maleynayaa hal maalin ka hor meel ayaan filaya. waxaan rabay shalay inaan soo bandhigo ama aan soo gudbiyo, laakiin waqtigu igu yaraa iyo barnaamijyo kaloo aan galay, taa darteed ayaan shalay usoo gelin waayay. xitaa barnaamijku waa aan duubay, laakiin barnaamijka marka aad duubto wuxuu u baahan yahay xoogaa inaa yara jarjartid oo habeysid oo isku keentid muuqaalkii. marka way ii yara suurtageli weysay. kadib maanta ayaan runtii ilaahay i fudeeyey inaan runtii jaanis aan u helo. videogaas kolley hal maalin ka hor ayaa lasoo bandhigay. waa runtii waa wiil 12 sano jir ah. runtii waxa uu sameynayo haddaad aragto aada runtii la yaabeyso. runtii waxa uu soo bandhigay runtii mucjiso. waa 15 litir qaad ayuu ilkihiisa intuu ku qaaday kadib stageka uu ku soconay. saas oo kale cunugaas waa 12 sano jir, waa 12 sano jir. hadda wuxuu qaadaa haddaa aragtid waa yaabaysaa, ma fahamtay? wiilkaas oo kale wuxuu u baahan yahay dhiirigelin ayuu u baahan yahay oo in lasoo bandhigo. waxaa jiro wiilal kuwaas kasii yar oo runtii maanta soo gudbin kara ama ilaahay uu siiyey heebad gaar ah ama mucjisooyin fara badan inay haystaan oo aysan garanayna ama cid soo bandhigta. marka wiilkaas waa 12 sano jir, hadda wuxuu qaadaa haddaa aragtid waa yaabaysaa. marka wiilkaas runtii wuxuu soo bandhigay arrin runtii la yaab leh. maanta aniga ahaan Axmed ahaan maanta kayga kuma qaadi karo wiilkaas inta uu ku qaaday. waa wax ilaahay asiga gooni ilaahay ugu dhigay runtii. waana runtii arrin aada u wanaagsan. runtii waxaan leeyahay wiilkaas hambalyo. kolley dad badanna waxaan filayaa inay muuqaalka iga sugayaan. bal muuqaalka wiilka aanu daawano qaabka uu soo bandhigay. caagan idin kala tegaya maasha allah maasha allah. waa hagaag. kursigaygii markaan tago ayaad bilaabaysaa soo maaha? waaye wala soo socon kartaa. may halkaaga adoo jooga meeshaada le stageka la marmar kor u qaad intaa la socoyaa. maasha allah. alla ilahe waa kuwa hibooyinkii la doonayey ee ugu muhiimsanaa ee la doonayay barnaamijkan hibooyinkii loo sameeyey Muqdisho Got Talent. waa hagaag asxaabta, runtii waxaan filayaa inaad runtii la yaabteen muuqaalkaas. waadna aragteen in wiilkaas uu aada u da-yar yahay, haddana waxa uu qabanayo ama waxa uu sameynaya ay tahay wax runtii annaga aanu qaban karin. marka waxaan kolley dadka barnaamijka soo gudbinayo aan kasii codsan lahaa. waxaa jiro runtii wiilal runtii ama dhalinyaro wiilkaas oo kale lamid ah oo runtii Soomaaliya kulley ku nool. waxay u baahan yihiin in lasoo bandhigo. marka inaad barnaamijka aada runtii sii ballaarisaan oo barnaamijka aad ka dhigtaan barnaamij runtii dad fara badan ay kasoo qeyb galaan, xitaa la raadiyo oo runtii loo sheego qof allala qofkii macnaha heybad ilaahay uu siiyey inuu masraxa uu kusoo dhawaado. taas marka waxay u noqonaysaa fursad ama chance in ay qof walba maanta ilaahay heybad uu siiyey inuu halkaas uu kusoo bandhigo. taasna waxay u noqonaysaa dhiirigelin, iyadoona markaas uu ay badanayso in qof allala qofkii runtii uu ku dhiirado inuu soo bandhigo waxyaabo runtii asiga qofka u gaar ah. taasa marka waxay keenaysaa in qofka dadaal fara badan uu sameeyo. laakiin qofka hadduusan haysanin meel uu kusoo bandhigo waxa uu soo qabtay uu juhdi badan waqti badan uu ku bixiyo, hadduusan haysanin runtii way adag tahay qofkaas inuu dadaalkiisa iyo juhdigiisa uu sii wado.
marka guud ahaan maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkii maanta reactionka aan kaga bixinayay wiilka 12 sano jirka mucjisada soo bandhigay fadlan haddii muuqaalka aad ka heshay subscribe noo saar like comment asxaabtaadana usii shargare mahadsan